bulshada kala duwan ee ku nool degmada Dar es Salaam ayaa soo dhaweeyay Sultaan Jimcaale Maxamed Ciise oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland waxaana halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dadkii soo dhaweeyay sultaanka waxaana hadaladoodii kamid ahaa sultaanka maanta soo gaaray beeshiisa haddii la yiraahdo waxay dhaynayaan haddii la yiraahdo abaalaha dhulka jira iyo biyaanta dhacday iyo haddii waalaha socda ayuu dhaynayaan uu ku leeyahay talabaad faraqa hadda waan gelinta haddii la yiraahdo dadkana inay qaataan ayuu haddii la yiraahdo ayuu ku gubaabinayaan dadkiisa iyo dawladda iyo dhulkiisa wada isku xidhan oo haddii la anfaca ilaahay ha ka dhigo salaam ya deegaanka degmadan intay dad isugu timid halkan waxaan u horeysiinayaa sultaanka Maxamed Ciise Sultaan Jimcaale waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa sultaanku waa sultaankii beeshayada waa sultaankeegii aad baan u soo dhaweynaynaa ugu ducaynaa marka hore waxa weeyaan kaarkii wadiinta oo maanta ay doorashadu maanta waa kaambay wajaan kulay markaan walba maalin baa halba ay muqtay la maalay marka sultaankii maanta wuxuu aad iyo aad ugu gaabinayaa ilooyinka ballaaran ee warahaadley ilaa iyo geedeed ilaa iyo ballayga cas ilaa ilmaha dhexe ayuu sultaanku maanta wala marayaa mar labaad inuu ku soo noqdo ayuu ku tali jiraa ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay Sultaan Jimcaale Maxamed Ciise oo isagu bulshada ku nool degmada Dar es Salaam ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland salaam soo dhaweynta qaaliga ee lagu soo dhaweeyeen waa maanta waa safarkii ugu horeeyay soo baxno horta waxaan u soo baxnay diiwaan gelinta si ay isku tabaabusheeyaan oo u qaataan waxaan ka hadli doonaa anigu hadalka sii badinayn waxaan halkan naxariis u marinaynaa Sultaan Ismaaciil Allah naxariistay geeriyooday dhawaan oo aad iyo aad reerka sultaankiisii guud ahaa taana waxaan leenahay Ilaahay u naxariistay faataxada mara waxaan ka hadlayaa saddex qodob waa taa diiwaan gelinta oo ku goorinaya dadku inay aad u qaataan dad gaaban baa la bixinayaa qof walba qofka kale u sheego qaata xisbiga doontaan ahada waxa ka muhiima oo qofku inuu qaato oo lagu xisaabtamo codkiisa taas waa qodobka labaad deegaanka ballaaran ee beeshaan ka soo jeedo anigu waxa igu kalifay inaan Suudaan u noqdo oo diidi kari waayay dhalinyaro badan iyo odayaal badan intii aan xisbiga ku jiray baan waa aragno badan aad uga dhaxlay waxaan arkay deegaankaygiyo ka hooseeya deegaamada kale nimcana Ilaahay siiyay oo waxa ka soo baxay biyaha qodradii ceelashii Hargeysa looga dhaaminay ee ku badbaadeen shilaaladii taasoo ay jirto wada la'aan sisir la'aan iyo caafimaadkiyo filan taa ogeed waxaan xukuumadda u boorinayaa xukuumadda iyo qolqoljoogga waxaa leeyahay ka soo qayb kala qaadaanka waddada intii laynooga baahnaa deegaan ahaan xukuumaddana waxaanu leenahay ceergaawo madaxweyne waad ku guulaysato waa dhistay waana kula dhisnay annagana nala dhis inta aanad ka tegin xilka haddii ay lahayna Khalid Ismaan Ibrahim Home Cable TV Hargeysa